maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan la kulanay runtii aad baan uga mahadcelinaynaa sida dhaqsaha ah ee uu qaabilay ururada bulshada rayidka ah oo ka kala socda Soomaaliya oo dhan oo ujeedkoodu ahaa sidii wax walba oo Soomaali ka dhaxeeya sida ugu fiican ugu dhamaan lahaayeen runtii madaxweynaha waxaan soo jeedinay waayihii la soo joogay waxyaabihii aan arki jirnay xilliyadan oo kaleeto walwalkana galay sida aan diyaar ugu nahay inaan qayb ka qaadano haddii ay yimaadaan wax madmadow ah ama isfaham waa ka dhaxeeya bulshada dhexdeeda madaxdeeda runtii madaxweynaha waxaan weydiinay su'aalo waxaan u soo bandhignay waxyaabihii quruxda badnaa waddanka ka dhacay muddadii muxuu ahaa madaxweynaha ka ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynuhu inuu si saraaxad la noola hadlay inuu noo sheego waxyaabihii horumarka ahaa inuu noo sheegay sababta ku kaliftay muxuu ahaaye inay mabda'an qofkii codkiis dowladda soo jeediso taasoo uu ku macneeyay in Soomaaliya ay hore u socoto ugu yaraan haddii la gaari waayo gobolka waddanka oo dhan ugu yaraan in la bilaabo si dad badan oo ka faa'iideysan lahaa oo aan jeclayn horumarka Soomaaliya ay u arkaan in Soomaaliya hore ugu socotay in wadadii shalay la qaaday oo qodxaha badneyd oo dhibka badneyd oo xaqdarrada ahayd oo boobka ahayd laga gudbo waxyaabihii nasiib wanaag ah oo noo sheegay madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa haba yaraatee inuusan noo sheegin wax kordhin iyo muddo kordhin uusan nagala hadlin ay tahay xilliga muxuu ahaa xukuumadda u hartay inuu jecel yahay inuu arko wax ka bedelan wixii shalay boobkii dhacay oo ku astaysan qof iyo codkiis marka runtii aad baan runtii ugu faraxnay sidoo kale wuxuu noo sheegay inuu ku dadaali doono maslaxadda iyo waxa Soomaalidu rabto taasuna waxyaabaha kale oo ku faraxnay shirku sida uu noqon doono waa bilow annagu aaraabaan wareejinaynay oo aan madaxweynayaashii maamul goboleedyada oo kala hadalnay qof kastana waxaan kala hadlaynaa waxa waa in maslaxadda loo soo dhawaado iyo in Soomaaliya horumarka ay ku tallaabsatay hore looga sii socdo oo gadaal looga leexan runtii October 2019 aniga waxaan khudbad ka jeediyay Security Council-ka khudbadeedu waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah in waddankan laga qabto waana waxaan aaminsaneen waa tan kaliya loogu bixi karo dhibaatada dalkan ee siyaasadeed ee soo laalaabatay maanta markay waxay taagan tahay war maxaa dan u ah ummadda Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ah ay dareemi karaan inay codkooda dhiibteen isla markaana ay ku qanci karaan laga hirgeli karaa dalkan iyadoo aan marna lagu laabanin wixii dhacay 2016 marka si taa loogu waantoobo waxay u baahan tahay in laga gaaro heshiis siyaasadeed dhammaan dadka ay qosayso